Assalaamu calaykum. Muuqaalkanan maanta waxaynu kaga hadli doonaa gabadh heerka araggeedu ahaa mid aad u sarreeya oo gaadhayay inay wax ka aragto masaafo jirta 3 maalmood. Heer lagu magacaabay gabadhan raadaarkii sheegi jiray dagaalada, waana gabadhii lagu magacaabi jiray Sarqaal iyo Maama. Aniga hawlaalkan Cabdimajiid ku soo dhawow muuqaalkeena maanta. Fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka ku soo biir like-na mahadsanid. inta aynaan u gudagelin qisadan bal aynu xoogaa yar faahfaahino arrimo yaryar oo ku meegaarsan qisada. waxay ka dhacday qisadan ama dhacdadani magaalo lagu magacaabay Yamaama oo ku taalay xilligaas ama waagaas jasiiradda Carabta, maantana ka mid ah goob ku taala dalka Sacuudiga. waxaana magaaladaas tegi jiray laba qabiil oo lagu kala magacaabi jiray Dasam iyo Judays. intaa kadib waxay laba ruux oo ka mid ah qabiilkii Judays waagaasna waxaanu ogsoonahay in goobaha amaba dhulka loo kala degi jiray qabiil amaba koox sida aynu Soomaalida horeba ahayd. waxaa laba ruux oo ka mid ah qabiilkii Judays oo ah mid ka mid ahayd qabiiladii degi jiray magaaladan soo magacaabnay Yamaama ayaa waxay ku rafiiqeen amaba ku bohoobeen nolosha guurka oo way isguursadeen. haddii ay labadii ruux maalmo amaba sanado wada joogeenna waxaa dhexdooda ka dhex bilaabmay mushkilad iyo dhibaatooyin, kuwaas oo sabab u noqday inay isfuraan oo ay kala tagaan labadii ruux. markii ay kala tageen ayaa ay labadii ruux isku qabsadeen ilmo yar oo uu dhalay ninkii, oo midba midka kale yidhi ana xanaaneynaya amaba haysanaya ilmaha yar. haddii ay kala bixi waayeen oo arrinkii jiq iyo jiq noqdayna waxay go'aansadeen inay isula tagaan ninkii ka talin jiray magaaladaas oo lagu magacaabi jiray Cimliq amaba Cumluuq. waxaana uu kasoo jeeday ninkani mid ka mid ah labadii qabiil ee degi jiray magaaladan oo lagu magacaabo Dasam. almuhim markii ay u wada tageen labadii qof ee isku haystay ilmihii yaraa ee ay u sheegeen sidii uu arrinku ahaa, ayaa waxa uu Cimliq ku yidhi amaba boqorkii ay isula tageen ku yidhi labadii qof ee ilmaha isku haystay, mid kastooba soo daa xujada aad doonaysid inaad igu qancisid si aan kuu siiyo ilmahan yar. markii uu mid walbana u sheegtay xujadiisii boqorkii Cimliq ayaa uu ninkii madaxda ahaa yidhi bal ii keena, amaba ninkii boqorka Cimliq yidhi bal ii keena ilmahan laysku haysto. isla markiiba waa loo keenay Cimliq ilmihii yaraa. kadib inta uu fiirfiiriyey amaba egeegay ayaa uu u dhibay mid ka mid ah askartiisii kuna yidhi labadii qof ee iska dhalay ilmahan iska taga amaba iska socda labadiinuba, ilmahan aniga igu daaya. bal suuraysa daawada arrinkaas oo bal ka fikir, falkaas ma mid xikmad ku dheehan tahayba? maxaa uu uga jeeday? bal yar istaaji muuqaalka oo ka fikir arrinka. waxaa laga yaabaa badankiinu inuu is yidhi waxa uu boqorku arrinkaa ka watay xikmad, balse ma aha sidaad mooday, sababtoo ah waxa uu ninkani ahaa in isla weyn oon waxbaba ka xishoon. markii uu ku yidhi labadii qof ee iska dhalay ilmaha yarna iskaga taga, waxay sahayn kari weyday hooyada dhashay ilmahan yar, waxayna kusii tidhi amaba kusii tuurtuurtay dhowr bayd oo shicir ah amaba ereyo gabay ah oo ay ku cambaareynayso amaba ku dhaliilayso kuna sifaynayso bahalnimadiisa iyo dulmigan uu kula kacay, waana iskaga tageen labadii qof. markii ay ka tageen labadii ruux ayaa waxaa maankii amaba maskaxdii boqorkii Cimliq ahaa ka bixi weysay oo kusoo noqnoqotay dhowrkii bayd ee gabayga ahaa ay gabadhii kusii tidhi, waxaana uu isla markiiba kusoo dejiyey amaba kusoo rogay dhammaan qabiilkii ay kasoo jeeday gabadhan ee Judays ahaa sharci aad u qaab darnaa. sharcigaas oo ahaa in gabadh kasta oo ka tirsan qabiilkaas Judays oo rabta in la aqal geliyo amaba in la guursado in ay la soo socodsiiyaan qoyska inanta dhalay, inay la soo socodsiiyaan guurkeeda qoyska inanta dhalay oo ay u timaado boqorka ka hor intaanay u gelin odaygeedii. waana uu ku fulay amaba dhaqan galay sharcigii cusbaa ee qaabka darnaa qabiilkii Judays, sababtoo ah ma lahayn qabiilkani awooddii tamar ay kala hortagaan boqorkan lagu magacaabi jiray Cimliq. waxay iskuraanba maalmuhu ay socdaanba waxaa maalin maalmaha ka mid ahayd lasoo doonay gabadh amaba inan ay walaalo ahaayeen ninkii suldaanka ka ahaa qabiilkaas Judays, ninkaasoo lagu magacaabi jiray Aswad bin Qafaar. intaa kadib waxaa dhacay meherkii inantan amaba gabadhii maalmo yarkeed arooskeedii. markii uu dhacay ee aan la geyn inantii gurigeedii ayaa waxaa loola kacay inantii dhankii boqorkii Cimliq, sababtoo ah waxay ka baqayeen in haddii lagu soo horreysiin waayo inuu dilayo gebi ahaantoodba. markii ay u gashay inantii amaba gabadhii ayaa waxa ay kala hortimi boqorkii Cimliq ahaa diidmo, ilaa ay markii dambe ku dhufatay boqorkii ul dhulka taalay oo dhiig ka keentay. isla markaana waxay dib ugu soo carartay albaabkii walaalkeed ku sugayey iyadoo qaylo afka furatay canaananaysa walaalkeed iyo dhammaan raggii qabiilkeeda ka tirsanaa. waxaa halkaa amaba arrinkaa ka xanaaqay ninkii ay walaalaha ahaayeen intii loo geliyey amaba inantii diiday boqorkii kusoo dhufatay
ee lagu magacaabi jiray Aswad bin Qafaar, waxaana uu ka qoomameeyey sida ay ugu ogolaadeen sharcigaas aadka u qaabka daran ee uu kula kacay walaashii iyo dhammaan hablihii qabiilkiisaba. waxaana uu bilaabay baleyn amaba si uu usoo xerogeliyo boqorkii oo uga aargoosto naftana u dhaafiyo. waxaana uu diyaariyey qaabkii uu soo xerogelin lahaa boqorkii Cimliq iyo askartiisii, waxaana uu diray warqad amaba dhambaal Cimliq ninkii Aswad bin Qafaar ahaa, dhambaalkaas oo ahaa inuu ka raali gelinayo kolkii ay ku dhaqaaqday walaashi markii loo geliyey amaba ay u geeyeen oo ay casuumeen. markii ay gaadhay Cimliq dhambaalkii waa uu ka aqbalay casuumadii. haddaba waxaa maalin ka hor uu la shiray Aswad bin Qafaar dhammaan raggii qabiilkiisa, waxaana uu wargeliyey marka ay dhammeeyeen cuntada boqorkii Cimliq iyo ciidankiisii uu nin walba nin dilo oo uu kurta ka jaro. waxaa la gaadhay maalinkii ballanku ahaa. markii ay dhammeeyeen Cimliq iyo ciidankiisa cuntadii, waxa ay mar qura ku war heleen sanqadhii seefaha iyo goynta madaxyadoodii, waxaana la dilay boqorkii dulmiga badnaa. laakiinse waxaa ka baxsaday goobtaas dilku ka dhacay nin ka mid ahaa raggii la socda Cimliq oo ka tirsanaa qabiilkan Dasam, waxaana ninkaas lagu magacaabi jiray Riyax bin Murra. waxaana uu cararay dhankaas iyo Yaman, gaar ahaan Ximyar oo uu ka talin jiray nin lagu magacaabi jiray Tubac al-Yamani. sababtoo ah waxa uu saaxiib dhow la ahaa boqorkaasi ninkii lagu magacaabi jiray Cimliq ee la dilay, waxaana uu ogsoonaa oo uu dhankiisa u aaday inuu garab ka heli doono Riyax bin Murra oo inuu soo aari doono saaxiibkiis. almuhim markii uu gaadhay waxa uu uga warramay arrinkii ka dhacay meesha iyo sidii loo dilay saaxiibkii Cimliq. markii uu maqlay Tubac arrinkii, waxa uu isu diyaargareeyey inuu u soo aargudo saaxiibkii oo uu soo laayo qabiilkaas dilay saaxiibkii oo uu uga soo aargudo. balse intii uu ku guda jiray Tubac al-Yamani diyaarinta ciidankiisa ayaa waxa uu ninkii Riyax bin Murra la wadaagay arrin ah inay jirto gabadh ay walaala yihiin oo lagu magacaabo Sarqa al-Yamaama oo uga dhaxday qabiilkan ay ku duulayaan. laakiin si aan uga naxsanayn gabadhan in la dilo ee uu ka cabsi qabo inay sii wargeliso qabiilka ay u dhaxday ee Judays inaynu duulaan kusoo qaadi rabno, sababtoo ah waxay wax ka arki kartaa masaafo jirta 3 maalmood, yacni waa masaafo dhan 120 kiilomitir. waxaana la sheegay inay gabadhan ahayd mid u gaadhsiisan yahay heerka aragtideedu inay kasoo dhex saarto caanaha cad, tinta cad amaba baalka cad, inay ku dhex jiro caanahaas inay kasoo dhex saari karto. waxaana ay u ahayd gabadhani magaalada ay ku noolayd raadaar uga sii digi jiray dagaalada kusoo wajahan magaaladeeda, waxayna subax kasta kormeeri jirtay 4 jiha ee magaaladeeda si ay ugu sii digto magaalada haddii uu kusoo socdo duulaani. intaa kadib aan dib ugu noqono labadii nin ee duulaanka kusoo qaadi rabay magaaladii, waxaana ay gudagaleen khidad amaba qaab ay arrinkan gabadha raadaarka ahayd in ay khidad amaba qaab aanay ku ogaan karin gabadha raadaarka u ah magaalada si oo ay ugu galaan magaalada iyadoo aan la tabayn kuna duulaan. waxay fakaraanba waxaa Riyax bin Murra keenay arrin ah inuu nin walba oo ciidankiisa ka mid ahay goosto geed leeg oo isku beegay geedkaas intay jidka kusii jiraan si aanay u arag gabadhaasi amaba gabadha ay walaalaha yihiin ee raadaarka u ah marka ay fiirfiirinayso amaba eegayso 4 jiho subaxii marka ay soo kacdo. waxaana ay ku dhaqaaqeen arrinkii oo waxa uu nin walba goostay geed isaga leeg, waxaana ay gudagaleen safarkoodii duulaanka ahaa ay ku duuleen magaalada. intaa kadib waxay sida caadada ahayd Sarqa al-Yamaama subax walba fiirfiirinaysay amaba eegaysay 4 jiho ee magaalada, waxaana ay ku aragtay subaxyada ka mid ah 4 jiho mid ka mid ah geedo soconaya, waxayna isla markiiba fahantay inuu yahay duulaan kusoo socda magaaladeedii. waxaanay wargelisay raggii magaaladeeda una sheegtay inuu jiro ciidan kusoo wajahan kusoo daba dhuumanaya geedo oo kusoo duuli raba magaaladeeda. ciidankaas oo ahaa mid u jira masaafo dhan 3 maalmood, balse raggii magaaladu waa ay la yaabeen oo ay ku qosleen, wax ihtimaam ahna ma ay siin warkeedii. markan waana ay iskaga tagtay Sarqa al-Yamaama goobtaas, waxaana ay sidiisa la mid ah maalintii labaad wargelisay raggii magaalada, laakiinse warkeedii dhag looma dhigin, waxaana laga soo qaaday kama jiraan amaba war been ah. ugu dambeyntiina waxaa soo gaadhay ciidankii ay hogaaminayay labadii nin ee Tubac iyo Riyax bin Murra oo kusoo duulay qabiilkaas, agtana mariyey oo dilay gebi ahaantoodna. waxaana uu ninkii Tubac kasoo tuuray indhihii Sarqa al-Yamaama oo iyadna halkaa ku nafbaxday kuna dhimatay markii laga saaray labadeedii indhood. muuqaalkeena maanta taasi ku eegyahay. intaynu ku kulmayna muuqaalka xiga waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.